maalin wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalkeena qaybtan waxaan ku eegaynaa Cabdirashiid Janan oo ku dhaartay inuu degdeg ula wareegayo degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo markan isku ballaarinaysa deegaanada gobolka Gedo gibi ahaan qarka u saaran inay la wareegto hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ciidamadii halkaasi uga sugnaa dhamaantood go'doon ay ku jiraan Cabdirashiid Jananna saaka isigoo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in si degdeg ah ay ula wareegayaan Garbaharey Luuq Doolow iyo sidoo kale deegaanada kale ee gobolka Gedo ku yaal waxaan kula wadaagayaa wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa uu Cabdirashiid Janan ka bilaabay beled Xaawo kadib markii uu halkaasi la wareegay hogaamiyaha Jubbaland cabsida soo food saartay iyo qorshaha dawladda federaalka ee ku aadan deegaanada gobolka Gedo soo dhawaada muuqaalka like saara si share gareey hadii aad nagu cusubtiina nagu soo biira si aad u heshaan xogaha iyo macluumaadka degdega ah ee aan halkan ku soo gudbino haddii aan ku bilowno hogaamiyaha ama taliyaha NISA ay u magacaawday deegaanada gobolka Gedo Cabdirashiid Janan oo dhawaan uu la wareegay magaalada beled Xaawo ee gobolka Gedo oo saakay warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in si degdeg ah ay ula wareegayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya deegaanada kale ee gobolka Gedo iyo degmooyinka guud ahaan deegaanada bartilmaameedka ah waxa qayb ka ah degmada Luuq ee gobolkaasi waxa ku sugan ciidamo ka marqaata hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waa ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale ciidamo maleeshiyada oo hogaamiyaha Jubbaland beel ahaan taageersan ama ka soo jeeda beesha ogaadeen ee degta qaybo kamid ah gobolka Gedo sidoo kale halkaas waxa ku sugan ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay qayb ka yihiin maleeshiyad ka soo jeeda beesha Mareexaan iyo beelaha kale ee halkaas dega waxa muuqata marka la eego xaaladda gobolka Gedo in dadkii ay kala qaybsameen oo beesha Mareexaan ay kala xiratay deegaanada gobolka Gedo beesha ogaadeen halkaasi lagu abuusayo Axmed Madoobana lagu awood sheeganayo markan dawladda federaalku waxay garab buuxa siinaysaa beesha Mareexaan oo Cabdirashiid Janan oo wiilkoodii ah oo halkaasi ka dagaalamayo markii uu beled Xaawo la wareegay ninkani waxa uu jeestay marka inuu deegaanada kale iyo degmooyinka kale ee gobolka Gedo ku yaala oo gibi ahaanba weerar ku qaado si halkaasi ay u noqoto meel ka caagan Axmed Madoobe iyo tiimkiisa haddaba talaabadani waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku daabulaysa ciidamadii ugu badnaa deegaanada gobolka Gedo dabcan arintani waxay u muuqataa waan awoodeystay oo awood ayaan u leenahay in la wareegno deegaanada kale ee gobolka Gedo ku yaala haddaba arintu faraha ay ka sii baxaysaa dhinaca qorshaha dawladda federaalka markii la eego qorshaha iyo xogaha macluumaadka aan helayno waxay tilmaamayaan in madaxtooyada Soomaaliya ay qorshaysay in deegaanada gobolka Gedo markii Axmed Madoobe laga sifeeyo ay u gudubto deegaanada kale iyo gobolada kale ee ku yaala Jubbaland sida Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose qaar kamid ah al-shabaab ayaa haysta laakiin inta yar ee Axmed Madoobe oo gacanta ku hayo ay dawladdu rabtaa inay kula dagaalanto ujeedada ay dagaalkaas iyo juhdigaas u bixinaysana waxa qayb ka ah in gobolka Gedo ay doorasho qof iyo cod ka qabato Axmed Madoobena oo waayo wax oo soo xulo oo xildhibaanada Jubbaland laga soo doorto waxay dawladdu rabtaa inay geyso gobolka Gedo gaar ahaan Garbaharey Doolow Luuq iyo sidoo kale beled Xaawo oo iminka ay dawladda federaalku ay gacanta ku hayso haddii arintan dawladdu samayso waxa ay ka dhigan tahay in dawladdu halkaasi dagaal ahaan aan ilaahdee military ahaan iyo siyaasad ahaanba labadaba ugu guuleysatay sababtoo ah haddii Axmed Madoobe lagu jabiyay gobolka Gedo dagaal ahaan ama ciidamadiisii lagu jabiyay halkaasi sidoo kale in doorashadii gacantiisa laga bixiyo laga furmuroojiyay oo nin aan la aqoonsanayn oo aqoonsi haysan ba laga dhigay gibigiisaba oo fadhiid ah Kismaayana iska fadhaa Kismaayada laftikeedana loogu tagi doono waxay ka dhigan tahay halis weyn oo Axmed Madoobe soo food saartay waliba jiritaankiisa Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland ku aadan intaas waxa u dheer ninkan cadaadiskii ugu weynaa waxa uu ka saaran yahay beesha caalamka waa nin ay maxkamadu waran u jartay oo cadaadis xoogan ay ula kulmayaan inkastoo ay jiraan qaar kamid ah dalalka diriska ah oo si daba dhilifnimo ah ugu shaqeeyo haddana ninkan beelihii degay gobolka Gedo
beesha Mareexaan iyo beelihii kale ayaa si weyn uga soo horjeeda oo waxay taageersan yihiin Cabdirashiid Janan oo iminka ku sugan deegaanada gobolka Gedo ninkan marka la eego Cabdirashiid Janan la yiraahdo waa nin dagaalyahana aan ka gamban waxa la yiraahdo dagaalka waliba korkiisa marka la eego waa daqarra miiran dagaalo badan ayuu soo galay waa nin soo jabay oo Axmed Madoobe ka daran marka la eego Axmed Madoobe inuu ciidamo dagaal galiyo mooyaane wali dagaal xabad intuu qaatay ma uusan soo galin korkiisa nabar kama muuqdaan laakiin ninkan korkiisa meel la taabto oo aan nabar ku oolin malaha sida daraadeed Axmed Madoobe waxa uu dagaalka ugu qaaday beled waxa ay heeday ninkan inuu isbalaariyo ayuu ka cabsanayay laakiin arintii uu ka cabsanayay maanta ay taagan tahay beled xaawa markii Axmed Madoobe laga qabsaday waxa uu leeyahayba waxaan u jihaysanaynaa luuq isdiyaariya ayuu leeyahay ciidamada digtoonaada waan dhaqaaqaynaa biri dambo doolow luuqow iyo sidoo kale deegaanada kale ee gobolka Gedo ku yaala oo ay qayb ka tahay Garbahaari ayaan ku wajahanahay cidii naga hortimaana buudka ayaan kula tumanaynaa oo waan xasuuqaynaa ayuu leeyahay sida aad muuqaalka ka arkaytaan warbixinta dib dambe ayaan idinkaga daari doonaa laakiin ninkan maxay ka dhigan tahay tallaabooyinka uu qaadayo ma la dhihi karaa waa ninkii soo afjari lahaa Axmed Madoobe waliba xitaa dadka ka agdhow ee wararka iyo macluumaadka xogaha laga helay waxay tilmaamayaan in ninkan uu socdo kursiga oo Axmed Madoobe hadda ku fadhiyo inuu la wareego hawadiisu waa sidaas awoodna waa uu leeyahay dabcan waa la dhihi karaa oo waa ninaan baqan haddana hub iyo wax kasta la isugu daray sida daraadeed waxa la leeyahay awood waa uu leeyahay ninkan inuu la wareego Kismaayo iyo guud ahaan gobolada Jubbooyinka Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose intaba Axmed Madoobe dhinaciisa iyo ragga taageersan waxa laga soo warinayaa inay ka fikirayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen tallaabooyinka uu ninkani qaadayo oo ay halis u arkaan dawladda federaalka xitaa waxay codsanayaan in wada hadal la furo oo xaaladdu aysan halkaasi gaarin laakiin dawladda wada hadalkii Axmed Madoobe ay la furi lahayd waa soo dhamaaday waxa la leeyahay dawladda markan waxa ka go'an inay awoodda ku tijaabiso ninkii ajandayaasheeda fulin lahaana waa ay soo heshay oo Cabdirashiid Janan weeyaan waxayna doonaysaa in guud ahaan gobolka Gedo ay la wareegto ujeedkuna kaliya ma ahan in halkaas la wareegto sida argagixisada ka daran ayaa loo ugaarsanayaa ciidamada Axmed Madoobe ee ka soo jeeda maamul goboleedka Jubbaland ee ninkaasi uu sida qaldan u adeegsanayo haddaba fariintani meel dheer gaarsii muuqaalkana sheer garay aragtidaadana ka dhiibo sidee u waragtaa in Cabdirashiid Janan markii uu qabsaday beled xaawo uu iminka u jeestay magaalooyinkii kale ee muhiimka ah ee ku yaalay deegaanada gobolka Gedo beled xaawo maadaama ilaa iyo 6 maalmood lagu dagaalamayay imisa ay qaadan kartaa ayaad isleedahay in luuq la qabsado sidoo kalena la qabsado deegaanada la yiraahdo Garbahaari waa degmooyinka iyo sidoo kale doolow oo ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiyaana imisa waqti ay qaadan kartaa ayaad isleedahay aragtidaada nala wadaag muuqaalkana sii sheer garay haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo macluumaadka degdega ah ee aan halkan ku soo gudbino dhinaca Axmed Madoobe waxa laga soo warinayaa haddii aan ugu dambeyntii eegno Kismaayo in ciidamadii ugu badnay laga daabulay lana geeyay deegaanada gobolka Gedo si halkaas ay uga dagaalamaan maalmaha soo aadan maadaama culayskii ugu weynaa dawladda federaalku ay iminka halkaasi saarayso si ay ninkaasi halkaasi uga saarto ciidamada kale ee ku sugan gobolka Gedo Axmed Madoobe halkaasi ka jooga waxa la soo warinayaa inay cabasho xoogan yihiin oo mushaar la'aan ay ka cabanayaan dhinaca kalena ay qeyladaan xoogan ka muujinayaan in ciidamadii Cabdirashiid Janan ay ku hareeraysan yihiin oo gibi ahaanba meel ay u baxsadaan ay leeyihiin ciidamada Itoobiyaanka ee halkaasi ku sugan xerooyinkooda ayay waxa la sheegay inay magan bidaan oo halkaasi ay ku sugan yihiin laakiin dawladda waxa ka go'an in ciidamada Itoobiyaanka halkaasi laga bixiyo sidoo kalena lagu bedelo ciidamo Masaariya warbixin kale ayaan ku eegi doonaa laakiin halkaas waxa qorsheysan in Masaari la geeyo lagana saaro ninka la yiraahdo ciidamada Itoobiyaanka ah ee ku sugan deegaanada gobolka Gedo waxay warar ka soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa idinkana aragtidiina ka dhiibla mahadsanidin